salaan ka bacdi hadalkaygu hadal mana badna waa Ramadaan laakiin waxyaabo xun qaadan weynay oo gardarooyin qaawana baan ka hadlayaa waxaan ka hadlayaa nimanka sheegaanta oo Soomaaliland oran maayo nimanka la baxay sheegaandan baan ka hadlayaa gardarooyin xunta nagu hayaan dhulkayaga nalama laha ilaahay qaadiga dadka nin walba meel buu dejiyey dhulkayaga naga iska leh yagu nalama wadaagaan iyaga soo nalama wadaagaan tol ma nihin isku deegaanna ma nihin isku qabiil ma nihin isku dhalashana ma nihin saa darteed baa dhulkayaga noola lahayn dhulka dadku waa kala leeyahay xitaa harti ama daarood waa dhul kala dego kala leh sheegaanlaana daala meel naga soo gashaa ma jiraan duubka madow diinta islaamka naga dhexaysa ninkii garanaya duubka madow iyo diinta islaamka unbaa naga dhexey wax kale nagama dhexeeyaan haddii xiidnima jirtay tolnima jirtay ehel jiray iyagaa diiday oo dadan lahayn sheegtay oo cabuliyey mid kale waxaan sheegayaa in haddii imaantoodna lahayn waxaan sheegayaa raggu waa isdilaa maatada lama laayo lamana cadibo hadda markay itaal waayeen oo xabadaan la dhacay ay ku asadeen dumarkii carruurtii ku asadeen oo xidhxidhayaan salad bay u furteenoo inta dadka xabiyan geeyaan jeelka qof kalba waxay kusoo daynayaan $100 salad bay u furteen tana caalamka islaamkaan u sheegaynaa inay waxaa samaynayaanoo raggu waa istilaa xabad bisa dhacaa xumaan baa dhex marta laakiin matada dumarka iyo carruurta waa ka xaqasanta waxyeeladu hadda iyagu waxaa xooggooda iyo taalkooda noqday carruurtii iyo dumarkii intay ka buuxiyaan jeel $100 sidii xoolihii daabaxa ku iibsadaan xumaanaha Soomaaliya ka mid tahay taa markaa ka imaado anagu dhulkayaga nagaa iskale sool iyo sanaag iyo cayn gabayla halmaala annagaa iskale dhulka hartaba daarood ka hadli maayo intaan dhibaantaan degnaan ka hadlayaa annagaa iska leh nalama degaan nalama laha naguma qabsan karaan markii burburku dhacay oo dowladdii dhexe ay burburiyeen oo burburku dhacay dad iska imaanlaawayaal yimaadeen dowlad yihiinoo ay raaceenoo kuwii baa noo soo dhaweyn oo soo geliyey hay waaye tii ladnaantii xamili waaye kuwaa iska raacayoo iyaga raacay oo dhuuniqaatayaalahoo imaan laawayaalahoo yidhi dowladdan ka jirta oo waa kanoo dadkii beenu sheegadoo dadkii qaldadoo carruuriyo maatay dumarkii durbaan u tumadoo been sheegay beentaa badankeed waxay dhacday anoo dhulka anugu ka maqan oo imaaraadka jira oo caafimaad u tegey waa kuwa imaan laawayaalihii dadkii u yimaadeen dowlad baanu haynaa arboos meel ay ku shiriyeen been bay u sheegeen cuqaal been oo aan jirin cuqaashu wax yar weeye kunoo cuqaal sheeganayo wada beena bay u qoreen anigu waan maqnaa dadka waan kicin lahaa oo ku miyuusanaabi lahaa xabaddaa laga dhici lahaa maqnaantaydii baa laga faa'iidaystay koluu qaateelo been sheegay anoo yidhi wakiil baan ka ahayna waa ta horaan u beeniyo wakiil igama ahayn waa been dadka tuugtaahoo raashinka onay ka mid ahaayeen dadka horta matada la tabtaafay haddeena waanu qaylnay yaa tulay baanu nidhi haddii wax kuu yimaadaan nin walba meesha cid ugu dhow ama tol ugu dhow ama eegas ugu dhow ama hayb la wadaago buu ku cararaa yaa daarooday baanu nidhi yaa hartiyooy baanu nidhi dadkii way soo kacay gardarooda qaawanna waa la arkay mid kale halka aan ku noqdee inaan rahan cigaal iyo ninka la yidhaahdo silaayo labada nin baana dilay markay nuga dilay waxay yidhaahdeen dhulbaxante lacagtana siiya hana la hadlina taasaa dhulka lagu qabsaday kan waa maasay ee xumaantii ku jirtay soo dedeji ana waxbu markana taray xumaantii 12 sano ku haystay oo lahaa u daadi shabakada u daadi lacagta sii hala hadlina tibuu soo dedejiyey anigu ninkaa waa ammaanayaa waxbuuna tare waxnama yeelin dadkii isu kiciyey dad usan lahayn buu sheegtay been buu isu sheegay
ciidan xoogaa la joogu mooday inuu yahay ciidanka maraykanka wixii kulli wada been hadda waxaan ku soo koobayaa dhulka yaga nalama laha annagaa iska leh waagii ingiriisku dhulka yimi iyagu way raaceen annagu maanu raacin oo daraawiish baanu ahayn wataan ula dagaalnay koofriga wataan ku leynay dhulkii dagaal ka dhacay iyagu waa raacayeenoo dabada kala u siiyeenoo iyagaa waday nagulaamanta waa diidanay gaalo iyo hawaankeedii qurinkooda iyagaa raacay hadda waxay ku leeyihin ingiriis baa dhulka la siiyey annaga ingiriis dhulka iyaga mana lahayn mana xambaarsanayn tuutan kuma sideen isagoo saa hadda u dhisay buu ingiriis yimi ka bacdina markii dadkii la yidhi ingiriisku waa tuulka yimi isaga dhulkaas somalilan loo yaqaan qabsaday dabeedna wuxuu yidhi markii dhulmaantihii wixii loo caal waayey wuxuu yidhi war nimankan dhulbahante aan ciidanka qoro meel aan iyaga u dhiibno saasay arrintu ahay isagu laba beeqo cidina waxba waysan jirin saasaa dhulka lagu soo galay markii dadka la kala xukumayo yidhi war dadku Soomaalidu wax ka dhaqan la badani lagu kala xukumo la sameeyo yoo aad maqasheen waxaa lagu kala xukumay waartee gudihiisa la yidhaa markii wax kala gaadhaan ducadaa lagu xukumo ducada laascadoodii way udhexaysaa iyo garoweyna u dhowdahay adugunaase lagu kala xukumo la yidhi garow marka magaalo weyn ma ahayn laascadoodda magaalo weyn ma ahayn nin baa ku dhintay sida markaa xukun ku soo baxay nin majeetana wuxuu ku dhintay lagu dayay meel la yidhaahdo gamarada agtiisa idishaa la garan waayey ingiriis waxaa layihi markaa ama dalka ama dalka iyo dhulmaantaa lagu xukumay dad kulligii baa lagu xukumay saas waata ku soo baxday arrintu dhulkaas lagu xukumi jiray xaggana talyaani baa haystay warba 20 qoloo hartiga ah ee isu geystaan aan kala xukunaa la yidhi xaggaynu ku xukunaa halkaa iyo adab geed timirka la yidhahdaa la oran jiray xoolaha lagu kala mariyo iyaga isaaq nalama lahayn nalama joogin waddanka nalama lahayn isaaq maantana waa xad looga dhigay meel yaroo gaatama ninkii yaqaan baa yaqaan taarikhdu waa qoran tahay gaatamaa la yidhaahdaa ugagaa laga helayaa meel dadku waa wada yaqaan way markaa noolaa iyo wuxuu dhintay oo taarikhda ka tirayba gaatamaa la yidhahdaa taarikhda ee noo dhexeeyey rumantiyo isaaq waa gaatama dhulaya noqon bay iska khasbayaan iyo adatan iyo halakan annaga markii qolan ingiriiska qolan taarikhda haystaa la yidhi war 20 qolo harti wax ka dhaqan labada isqabtaan meel loo dhaxaysa loo kala xukumo timirka geed la yidhahdo iyo cada ka shisheeya markaas xoolaa loo kala marin jiray arrintu saasay ahayd wixii beena ninkii labaa leh haddeena waxaan ku soo koobayaa wii dhici lahaa waa dhaceen wiilasha halkaa ka jooga oo toorar jooga waa abhinaya anigu nin weyn baan ahay haddii alhiina le wiilashii naagxaysta oo la taga wixii nool kala baxa haysan maayaan wixii nool noolaan maayaan anagu waa tashanay oo haddaanu hatinahay daaroofta nahay daaroof soka nahay waa tashanay waxaan yidhi haddaan nina ka hadhayn ilaahaynu geyno oog iyo caynaba yaynaan ka hadhin warkaas waa sidaa weeye beena noqon maya xagga ilaah hadday ka noqon waayin mid kale day dhulka yaga ingiriisna ma xukumo talyaanina ma xukumo ilaa annaga ilaah ka sugo annaga xukuna annagu haddaan diidno dagaal soo jimna dhulka yaga nolol ka kaco ina lagu khasbi kari maayo mana gardarin waxaa in badan baan dacwoonay oo u sheegnay hadda waan u sheegaynaa hadday dhulka yaga naga kacayaan oo wixii oogu sokaysa tegayaan iyo caynooshadeeda waa iska hadhayn anigu raaci mayno sidooda dhanaan dooni mayno iyo dadaanaan lahayn saa caalimka u ogaado anagu gardaray u gardaran yihiin ninka dile iyo gorayo cawliya boroba ka yimi oo tooga tooraq jooga maxaa soo waday doona wax soo waday waxa weeye aan isu jawaabaye waa melegiisi aa soo wadi melegaad soo wadaye waa kalaba soo wadi xabaasha ma socotee maydkaa socda saa wey hor arrintu haddaan soo koobay aan saafadda wax wareerini dhulka yaga annagaa iskale haddii aalahooda nima istaaba yihiin wiilashooda ha kaxayso ha la tageen oo ha geeyo markii gaatama iyo loo gaadho caynoosheeda ha tageen oo dhigooda naga kaxeeyeen oo rabadaan baa lagu jiraa oo yayna khalifin wiilashooda ha kaxaysteen hadday taa diidaan waxay keenaan bay leeyihiin dhulkaa ka dhacana ilaah u maqal islaamka u maqal dhulkaa wixii ka dhacana
jeegaanta ka mas-uula jeegaanland baa ka mas-uula sana rag baan waa degnaayo jeegaanland maaha bela nooma dhaxayso heshiis baanu nahay laakiin jeegaanland nimanka la baxay jeegaanland oyna bixi madaxweyne uu yahay hadday dhulkay nooga bixin dagaal iyo xumaan baa noo dhaxa